14 dal oo ku kala yaala daafaha dunida kuwaas oo ay tiradoodu kor u dhaafaysay 100 qof oo culamo diin ah waxaana furitaankii shir cilmiyeedkan loogu magac daray nabaddu waa furaha nolosha ka hadlay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mudane Cabdi Maxamuud Cumar oo sheegay in shir cilmiyeedkani uu faa'iido weyn ugu fadhiyo bulshada ku dhaqan deegaanka sidii ay faham buuxa uga yeelan lahaayeen diinteena suuban ee islaamka isaga oo mahadnaq ballaaran u jeediyay ururka UWSLF ee nabadda qaatay iyo waliba go'aanka geesinimada leh ay u qaateen shacabkooda darteed isla markaana iyagu ka dambeeyay diyaarinta iyo qabanqaabadii shir cilmiyeedkan oo loogu magac daray nabaddu waa furaha nolosha sidoo kale waxa isaguna madashaasi ka hadlay gudoomiyihii ururka UWSLF ee nabadda qaatay Sheekh Ibrahim Sheekh Maxamed Xuseen oo hadal kooban ka jeediyay isla markaana tilmaamay in shirkani uu ahmiyad gooni ah leeyahay iyada oo ay madasha shirarka ee Sayid Maxamed Cabdille Xasan ee magaalada Jigjiga ay isugu yimaadeen culamo diin ka kala socday 14 dal wuxuuna sheegay in ay tani kamid tahay midhihii ka dhashay nabadda ay qaateen isaga oo xukuumadda deegaankana mahadnaq u soo jeediyay shir cilmiyeedkan oo socday muddo 3 cisho ah ayaa waxa ay culamo diinku shir cilmiyeedkani kadib ay qabteen 70 muxaadaro diini ah oo ka dhacday masaajidada magaalada Jigjiga iyo gobolada deegaanka sanad waliba hoodiyo hawl iyo dhibaatiyo wuxuu hadiima leeyay wallaga helaayo hadhow lagu xasuusta haddaba dowlad deegaanka Soomaalida waxa sanadkii aynu soo dhafnay 2003 ay ku talaabsatay in ardayda fasalka 10aad ee imtixaanka heer qaran u fadhiisanaysa lagu daro imtixaankooda maadada afka Soomaaliga taasi oo noqotay arrin taariikhi ah oo diiwaanka gasha waxayna maadada afka Soomaaligu oo ah afkooda hooyo ardaydan imtixaanka qaadatay ay ka caawisay dhinaca dhibcaha lagu gudbo waxaana hore u jiray in maadooyinka ay kamid ka yihiin afka Amxaariga Tigreega iyo waliba afka Oromooga lagu qaadan jiray imtixaanka fasalka 10aad ee heer qaran balse sanadkan 2003 uu ku soo biiray afka Soomaaliga taas oo noqotay guul u soo hoyatay deegaanka Soomaalida ardayda wax ka barata afka Soomaaliga oo haddaba afka lagaga shaqeeyo xafiisyada dawladda waxa uu kamid yahay xuquuqaha oo ummadda deegaanka Soomaalida uu siiyay dastuurka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya oo dhigaya in qoomiyad waliba ay afkeeda isku maamusho isla markaasina ay u adeegsato hawlaha xafiisyada dawladda heerarkeeda kala duwan sanad waliba hoodiyo hawl iyo dhibaatiyo wuxuu hadiima leeyay wallaga helaayo hadhow lagu xasuusta wali waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkeenii gaarka ah ee aynu ku eegaynay dhacdooyinkii ka dhacay deegaanka Soomaalida sanadii aynu soo dhaafnay ee 2003 sidaynu ka wada warqabno waxa deegaanka Soomaalida si istaba joog ugu soo qulqulaya qurba joogta u dhalatay deegaanka oo muddaba ka maqnaa deegaanka iyagoo ka aaminsanaa fikra khalada deegaanka iyo aragtiyo ay u arkayeen in deegaanka ay ka jiraan arqalado waxayna dhaayahooda saareen kadib markii ay yimaadeen deegaankooda in ay ka jiraan horumar nabadgelyo iyo waliba maamul suuban oo isagu guntida dhiisha iskaga dhigay sidii uu ummadda ku nool deegaanka ay horumar iyo nabadgelyo lagu diirsado u heli lahaayeen waxayna tani ka dambeysay kadib markii uu madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Mudane Cabdi Maxamuud Cumar uu buuqashada hawleed ku soo maray wadamada Yurubta iyo Mareykanka isagoo u soo bandhigay xaaladda dhabta ah ee ka jirta deegaanka Soomaalida iyagoo aad ugu qushuucay madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Mudane Cabdi Maxamuud Cumar sida wanaagsan ee uu ugu xaqiijiyay xaaladda guud ee dowladda deegaanka Soomaalida waana madaxweynihii ugu horeeyay ee buuqashada hawleed ku taga wadamada Yurubta iyo Mareykanka si markaasi uu kulamo kala duwan ula yeesho qurba joogta u dhalatay deegaanka si ay u maalgashadaan dhulkooda hooyo oo ay u soo arkaan hanaanka horumarineed ee sida xawliga uga socda deegaanka Soomaalida waxayna arintani soo jiidatay qurba joogtii oo iyagu si istaba jooga ugu soo socda deegaanka Soomaalida si markaasi ay u maalgashadaan deegaankooda waxaana dhacdooyinka guusha soo hooyay kamida in deegaanka Soomaalidu uu noqdo mid ay ku soo wada hirtaan fanaaniinta ku nool wadamada kala duwan
oo iyagu qiiro gelisay markii ay yimaadeen xarunta looga arrimiyo dowladda deegaanka Soomaalida ee magaaladani Jigjiga qaabka ay ugu soo dhaweeyeen bulshada ku nool magaalada Jigjiga iyo maamulkuba waxaana yaab ku noqotay waxyaabihii ay ka aaminsanaayeen iyo waxa ay ku arkeen iyada oo qaar ka mid ah fanaaniintaasina ay tageen degmooyin ka tirsan deegaanka si ay u soo indha-indheeyaan horumarka kala duwan ee sida tooska uga socda deegaanka waxaana marag madoona in deegaanka uu ku tallaabsaday horumar iyo nabadgelyo waara qaabka ay u socdaan hawlaha lagu horumarinayo bulshada ku dhaqan deegaanka iyada oo sanadkii aynu soo dhaafnay ee 2003 deegaanka laga fuliyay mashaariic aad u tira iyo tayaba badan oo ay ku qancaan bulshadu sidoo kale bilihii ugu dambeeyay ayaa waxa ka socday magaalada Jigjiga bandhig faneed ay iskugu yimaadeen fanaaniin ka kala socotay deegaanka dalka iyo waliba daafaha dunida oo iyagu soo bandhigay bulshada ku nool magaalada Jigjiga iyo nawaaxigeeda fankooda kala duwan ee ay ugu tala galeen bulshada وبيدلكي وين السوقيا وبيسرى إناد كتاكتان وبيوش هذا أتسميسان وبيدلكي وين السوقيا وبيسمالي داي توبيا وبيدلكي وين السوقيا وبيدلكي وين السوقيا هدي ملياي وان إسياي سند ولي بهوديو خول يو ديباتيو وحو هدي ملياي والله قاهلايو هدو لغو حسوستا والله قاهلايو هدو لغو حسوستا كي نو هقاقين نقلو هوايي كي نو هقاقين نقلو هوايي كي نو هقاقين نقلو هوايي نقلو هوايي waxaan halkan uga hambaleynayaa dhammaan dadweynaha iyo shucuubta Itoobiya kuwa ku nool dibadda ee u dhashay Itoobiyaanka iyo kuwa gudahaba waxaan leeyahay ilaahay ayaa mahad kale ilaahay inuu gaarsiiyey sanadkan 2004 taariikhda dalka Itoobiya ilaahay nabad iyo inuu gaarsiiyey horumar ayaa mahadle waxaan leeyahay baga ayaa ilaahay nabad inuu gaarsiiyey maalinta qaaliga maalinta sanadkeena isbedelay aanu galay sanad cusub waxaan leeyahay ilaahay noo dhiga sanadkan kii bashbash iyo barwaaqo horumar iyo nabadgelyo iyo maamul suban aan gaarno ilaahay noo dhiga leeyahay Itoobiya ay ku guuleysato qorsheeda 5 sano ay dhigatay kaalinta uga aadan sanadkan iyo gudubka weyn ee bay oo ah isaguna rajada koowaad ee Itoobiya oo dhawaantii wadada aan kaga baxayno rafaadka iyo gaajada iyo dhibaatada Itoobiya ay ku geli doonto wadamada dhaqaalahoodu dhexdhexaadka yahay ay ku geli doonto waxaan leeyahay qorshahaas ilaahay baa ka dhigay kii rumooba isla markaana shacabka Itoobiya si hagar la'aan ay uga qayb qaataan ayaan dhihi lahaa marka waxaan leeyahay sanadkan aan soo dhaafnay waxaan dhihi karaa dhanka horumarkii nabadgelyada iyo maamulka suuban waxaa noo qabsoomay qodobo aad u waaweyn oo ku faanid mudan hadday noqoto heer deegaan iyo hadday noqoto heer federaal marka aad iyo aad baad mahadsantihiin sanad wanaagsan ilaahay sanad khayr qaba Allah inoo dhigo
hadii maleeyay wan heesayaaye sanad waliba hoodiyo hawl iyo dhibaatiyo wuxuu hadii maleeyay wallaga helaayo hadhow lagu xasuustaa wallaga helaayo hadhow lagu xasuustaa kii noo hagaagee noqon loo hawayay kii noo hagaagee noqon loo hawayay kii noo hagaagee noqon loo hanwayay noqon loo hanwayay ilaahay ha kaa dhigo adna hogolda aysiyo habindhalad barwaaqiyo waan ku haybinayne ilaahay ha kaa dhigo adna hogolda aysiyo habindhalad barwaaqiyo nimca la hadhsan dooniyo cawa lagu heshiiye cawa la hadhsan dooniyo nimca lagu heshiiye